waa maalin weyn oo kale oo taariikhi ah oo aan dadka Soomaaliyeed la rabo in la wadaago walaalayaal sidaad ogtiin 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka urteen ay ka baayeen oo dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dawladnimada kadib golaha amniga jamciyadda quruumaha ka dhacaysa Soomaaliya waxay ku soo rogeen cunaqabateyn hub maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan u sheego cunaqabateyntaas horta Soomaaliya saaray waxay ahayd cunaqabateyntii ugu dheereed ee taariikhda UN-ka weligeed dawlad la saaro ama dal la saaro ee taariikhda UN intay jirtay oo dhan 30 sano waxaan hadda sii garooynaa sanadkii 32 dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo sanadkii 32 cunaqabateyn hub inaanay saarnayn maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed sheego dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka dalkaynu maanta wuxuu xor u yahay inta awooddeenu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsano caalamka aan ka soo iibsano waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn dalkeenu waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan dhaho hambaliyo dawladdeenu maanta waxay soo gaartay meel naloo qiray dalka Soomaaliya inuu leeyahay dawlad responsible ah dawlad mas'uul ah oo qaadi karta mas'uuliyadaha caalamiga ee ammaanka caalamka quseeya iyo mas'uuliyadaha nationalka ah qaran ee dadkeeda quseeya amnigooda intaba dawlad xambaari karta inay tahay dawlad leh nidaam iyo shuruuc iyo qawaaniin iyo siyaasad u degan oo adduunyada ay kula macaamisho leh dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambaliyo waad soo adkaysateen waana soo dul qaadateen waana soo dadaasheen inaan soo gaarno maanta meeshaas marka waxaan leeyahay hambaliyo waa guulaysanay horaan u soconaa cadawgeena waa jibinaynaa wuxuu yahay nooc kasta uu yahayba dadkeena amnigooda iyo magangalkoodana waa ka shaqaynaynaa haddii aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.